iska ilaawa dimuqraadiyadda beenta ah taas oo lagu damiyo iskuulaadka cisbitaalada haweenka iyo carruurtana lagu dilo Burkina Faso uma baahna taas sidaas waxa yiri hogaamiyaha dhalinyarada ah ee militariga ku afgambiya wadankaasi Ibrahim Traoré waa sheekada ugu ballaaran ee toddobaadyadii la soo dhaafay ay si weyn u lafagurayeen warbaahinta reer galbeedka nin dhalinyaro ah oo wadankiisa qabsaday xilli xaaladdu ay adkayd isla markaana isbedelo waaweyn soo kordhiyay ayaa ku dhawaaqay Burkina Faso inaanay u baahnayn xukun lagu kala wareego laakiin shacabkeedu ay u baahan yihiin nolol isbedel waxbarasho iyo waliba in ay ka daba tagaan dunida hormartay dood culus ayaa ka taagan saaxadda warbaahinta iyo goobaha fikirka lagu sameeyo cilmi baarista iyadoo dhinaca kalena ay soo baxayaan in uu wajahayo qataro weyn oo ku saabsan noloshiisa inay halis gashay iyadoo bilowgay sanadkan xitaa la isku daya abaabulka weeraro loo adeegsanayo qaraxyo kuwa toosa iyo sidoo kale in la beegsado saraakiisha sare ee isaga la shaqaysa saacadee wasaaradda gaashaandhiggu waxay leedahay waxaasi oo dhan waa laga hortagay waxna abaabulaya wadamada reer galbeedka Ibrahim Traoré intaa kuma simin oo kaliya xaaladiisa saacadee waxa uu mamnuucay warbaahintii reer galbeedka isagoo ka fakaraya in maskaxda iyo maanka bulshadiisa aan lala saameyn warbaahinta dawladda ayuu ka dhigay tan ugu awoodda badan oo ay shacabku wax ka maqlaan waxa loo jahaystay hal abuurka tiknoolajiyadda wax soo saarka warshadaha iyo tacabka dhulka beeraha ee wadankaasi Burkina Faso haddaba su'aasha taagane waxay tahay Burkina Faso ma ka badbaadi karaysaa qataraha maleegan loolanka sirdoonka ee ka jira gobolka saaxil iyo waliba in ninkaasi uu looga hortago in uu soo nooleeyo raadkii Thomas Sankara ma badbaadin karaan saaxiibada sida Ruushka ah ee gacan saarka uu la leeyahay loolanka siyaasiyiinta gudaha ee loo arkay inay cabursan yihiinna maxay samayn karaan hadda oo ay soo kordhin karaan si gaar ah xisbiyadii laga mamnuucay talada wadanka inay u loolamaan Burkina Faso ma waxay u baahan tahay isbedel maamul mise waxay u baahan tahay isbedel bulsheed si gaar ah ayaan ugu eegi doonaa barnaamijkan arrinta la xiriirta wadankaasi oo durbaba caalamka mar kale laba kacleyn ku samaysay iyadoo wargeyso waaweyn iyo kuwa cilmi baarisba ay bilaabeen in si gaar ah ay indhaha ugu hayaan wadankaasi soo dhawaada mar kale toddobaadkan warbaahinta reer galbeedka waxaa qabsaday sheekada hogaamiyaha dhalinyarada ah ee wadanka Burkina Faso Ibrahim Traoré oo ah kabtan talada wadankaasi ka qabsaday madaxweynihii hore qudhiisa afgambiga ugu qabsaday arrinta ugu yaabka lahayd waxay ahayd waraysi uu siiyay telefishinka dawladda oo uu ku sheegay in Burkina Faso aanay u baahnayn dimuqraadiyadda beenta ah wariyaal su'aalo weydiinaya ayaa hordhigay goorma ayaa laga yaabaa xukunkii rayidka iyo dimuqraadiyaddu in ay wadankan dib ugu soo laabtaan laakiin Traoré oo ay ka muuqanayso qanacsanaan badan iyo waliba kalsooni dheeraada ayaa si halhaleel ugu jawaabay wariyaasha markii uu yiri ma Burkina Faso ayaa u baahan isbedel dimuqraadiyad ku dhisan dimuqraadiyadda aad tilmaamaysaan waa tee ma midda carruurta lagu dilo oo haweenka lagu gowraco ma midda iskuulaadka iyo goobaha waxbarashada lagu burburiyo ma midda lagu baabi'iyo dhismayaasha cisbitaallo waaweyn oo caalamka ka jiray dimuqraadiyadda aad sheegaysaan waxa sabab u ah weeyri dhacdooyinkaasi oo dhan inay sameeyaan hogaamiyaal la soo doortay laakiin aan ku warramo wariye Burkina Faso uma baahna in tallaabooyinkaasi ay ka dhacaan waxaan u baahannahay isbedel nololeed waxaa loo baahan yahay shacabka wadankan Burkina Bay oo noqda kuwa la jaan qaada dunida hormartay wadankeena waxa uu leeyahay kheyraad waxana shacabkeenu ay wali yihiin kuwa daruufaysan oo diif iyo diihal uu ka muuqanayo sidaa daraadeed innaga waxaan u baahannahay nolol ee uma baahnin xukun lagu loolamo arrinta yaab kale waxay tahay markii toddobaadyo ka hor madaxweynaha wadankaasi Burkina Faso Ibrahim Traoré uu ku dhawaaqay xisbiyadii mucaaradka ahaa in la kala diray waxana uu yiri nimankan siyaasiyiinta ah ee koorarka sita
dib ugu laabta beeraha oo tacabka qayb ka noqda iyo waliba horumarinta shacabka reer Burkina Faso ayaa idinka baahan inaad kaalmo ka geysataan ma aha inaad ku fakartaan inaad timaadaan xafiisyo aad ka shaqaysaan isla markaana aad ka tacbataan xoolo caruurtiina aad ku horumarinaysaan kuwa asaagooda ah ee ku nool waddankanna ay abaar iyo diif ku nool yihiin arrintan waxa ay daba socotay markii xukuumadda Burkina Faso ay ilaa iyo sanadka 2029 u kordhiyeen muddadii xilhaynta hogaamiyaha waddankaasi Ibrahim Traoré oo markiisii hore ka yimid ciidamada la dagaalanka argagixisada samarkaana ka soo mid noqday hogaamiye iyo askari ka tirsanaa ciidamo nabad ilaalina samarkaana markii dambe qayb ka noqday unug si gaara uu u hogaaminayo oo loo tababaray argagixisanimada in ay la dagaalamaan isaga oo geed hoos jiifa howlgalna ku jira ayay ahayd markii uu go'aansaday talada waddankaasi inuu la wareego sida ay tilmaamayaan qoraallo laga qoray iyo dokumentariyo laga diyaariyay oo raatreeba haddase Traoré oo talada gacanta ku haya ee waddanka Burkina Faso mar kale ayuu arkayaa qataro waaweyn oo ku soo socda aan dib u eego arrinta uu qorayo wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska waxa uu tilmaamayaa arrinta la yaab kale ee Traoré in ay tahay marka uu leeyahay dimuqraadiyad looma baahna waxa uu leeyahay wargeyskan xisbiyadii siyaasadda waa la mamnuucay bilihii ugu dambeeyay xukuumadda militariga ayaa sii adkaysa awoodeeda bishii Janaayo ee 2026 dowladda ayaa si rasmi ah u mamnuucday dhammaan xisbiyadii siyaasadda talaabadan ayaa sii fogaysa buu leeyahay wargeysku rajadii ahayd in dalka dib loogu soo celiyo nidaamkii rayidka markii hore militarigu waxa uu ballan qaaday in doorashooyinka la qaban doono sanadkii 2024 ee laga soo gudbay dalka waxaa lagu wareejiyay laguna wareejinayo dowlad rayid ah balse sanadkii 2024 xukuumaddu waxa ay mar kale u kordhisay Traoré inuu talada sii joogo ilaa laga gaarayo sanadka 2029 sheekooyinka la yaab kale waxay tahay Ibrahim Traoré waxa uu shacabka waddankiisa dareensiiyay reer galbeedku inay yihiin dhigmiirad aan marnaba ogolayn in shacabkooda ay madaxa kor u qaadaan si gaar ah waxa loo culaadiyay dowladda Faransiiska oo loo arko inay ku jabtay galbeedka qaaradda Afrika xogaha sirdoon ee qoran waxay tilmaamayaan Traoré in aanu kaliya ku rayoon in talada waddanka uu la wareegi karo laakiin ay gacmo shisheeye sida Ruushka oo kale ay ku jiraan waa dood reer galbeedku ay miiska keenayaan wargeyska oo Traoré sheekadiisan si weyn u eegaya iyo waliba kacaamaynta lagu sameeyo dhalinyarada waxa uu leeyahay waxa si joogto ah uu Traoré u soo nooleeyaa sheekadii halgamaagii caanka ahaa Thomas Sankara madaxweynihii waddankaasi ee talada hayay 1983 ilaa 1987 markii lagu eedeeyay saaxiibkii dhagar uu u maleegay in lagu dilay Thomas Sankara waxa uu haliyay dhalinyaro ah oo ka dhax yimid militariga kaas oo inta badan soo nooleeyay rajadii shacabkaasi ay lahaayeen waa ninkii iska diiday kaalmadii reer galbeedka ay siin jireen Burkina Faso waa ninkii eebiyay qalabkii qaaliga ahaa ee dowladda isla markaana yareeya lacagaha ay qaadan jireen mushaar ahaan madaxda sare ee dowladda taa beddelkeedana abuuray rajo shacabka ay dib u heli karaan nolol wanaagsan ilaa iyo 10 milyan oo geed ayuu ku abuuray waddankaasi iyadoo caruur fara badanna laga talaalay xanuunada dilaaga ah sidoo kalena xilligaasi waxyaabaha la yaab kale ee la sameeyay waxay tahay shacabku inay u jihaysteen wax soo saarka beeraha isla markaana kor loo qaaday dadka wax qori kara iyo kuwa wax akhrin kara arrimahaas oo dhani waxay dhacayeen xilligaasi Thomas Sankara iyadoo aysan kaalmo siinayn wadamada reer galbeedka ee Faransiisku horfiiq u yahay tani waa himilada dhabaha yoolka iyo rabitaanka Ibrahim Traoré reer galbeedku waxay u arkaan isku filnaanshiyaha Burkina Faso in ay noqon karayso mid aan caadi ahayn sidoo kale ninkan waxyaabaha lagu haystay waxa kamid ah in uu abaabulay isla markaana uu qarameeyay shirkadihii dahabka iyo diamondka qodan jiray waddankaasi
ee shisheeyaha ahaa iyadoo inta badan hantidaasi ay qaadanaysa dowladda islamarkaana dib loogu celin doono adeegyada shacabka reer Burkina Faso. hadda oo xaaladdu ay adag tahay aqoon-yahanada reer galbeedku dood badan ayay keenayaan oo waliba miiska ayay soo saarayaan. hase ahaatee inta aanan guda gelin aqoon-yahanku waxa ay soo bandhigayaan reer galbeedka iyo doodda qudhooda ka taagan waxa ay tahay bishii January ee sanadkan Traore waxa uu ka badbaaday mid ka mid ah afgambiyadii ugu halista badnaa ee la doonayay noloshiisa in lagu qaarajiyo. sababtu waxay ahayd markii la abaabulay afgambi dhinac kasta ka agaasiman sida in qaraxyo la adeegsado, in gurigiisa la weeraro, in saraakiil iyo madax isaga ku dhow la dilo, isla markaana ciidan lugta ah la soo geliyo wadankaasi oo talada wadanka Burkina Faso laga qaato. sidaasi waxaa telefishinka dowladda ee RTP la yiraahdo u sheegay Maxamadou Sana, wasiirka amniga qaranka dowladdaasi. waxa uu leeyahay ilaa iyo 4 ama 5 qodob oo waaweyn ayaa qorshaysnaa si Traore iyo xukunkiisan himilada reer Burkina Faso ku dhisan meesha loo dhaafiyo. dilal qorshaysan ayaa la rabay in lala beegsado saraakiil sida militariga iyo mas'uuliyiin rayid ah. isku daya ayaa la rabay in la doonayo in lagu dilo Traore. qaraxyo waaweyn ayaa la qorsheeyay in lagu weeraro hoyga madaxweynaha. waxaa la rabay in la baabi'iyo oo la curyaamiyo saldhigyada diyaaradaha droniska ah ay ka duulaan ee Burkina Faso iyo waliba in la diyaariyo buu yiri faragelin ciidan oo dhulka ah oo la sheegay inay qayb ka ahaayeen baa la yiri xoogag dibadda ah. Traore arrimahan oo dhan waa uu ka badbaaday laakiin waxaa lagu eedeeyay dhammaan arrimahaas inuu ka dambeeyay Paul Henry Damiba oo ah madaxweynihii Traore oo talada ka qaatay ee qudhiisa afgambiga ku qabsaday. Damiba waxa uu xilka hayay balse waxa xilka ka qaaday baa la yiri looga tuuray afgambiga bishii September 2022 Ibrahim Traore uu ku sameeyay gudaha wadankaasi Burkina Faso. hase ahaatee doodo waaweyn oo cilmi ah ayaa ka bilaabmay bariga ama aan idhaahday qaaradan Afrika iyadoo aqoon-yahanada reer galbeedka ah ay ka dhex bilaabmeen doodo waaweyn oo ku saabsan Traore iyo waliba fahanka afgambiyada iyo waliba kacaanka ka curanaya qaaradda Afrika. aqoon-yahanka la yiraahdo AJ Hon ayaa maqaal uu daabacay waxa uu ku sheegay dhinacyada fikirka bidixda ah wata ee reer galbeedku in aanay fahansanayn qaabka ay u dhacaan waxa la xiriira afgambiyada iyo kacaanka waxa ku dhisan ee ka dhacay qaaradda Afrika sida wadanka Burkina Faso oo kale. majalada cilmiga ah ee la yiraahdo Simplifying Socialism ayaa waxa uu ku qoray dood weyn kadib markii horey uu u jeediyo dood kale oo ka soo baxday aqoon-yahanka la yiraahdo Jacobin oo dhaliilay hanaanka hogaamineed ee madaxweyne Ibrahim Traore. ninkan waxa uu leeyahay wadamada reer galbeedka kuwa hogaamiye ee ka imaanaya bidixda ee iska dhaliilaya qaaradda Afrika maba ogaba qaaradan waxa ku dhisan ee kaliya waxay dul taagan yihiin waxyaabaha lagu qoray buugaagta cilmiga ah iyo afkaarta naqdiga ah ee lagu sameeyo goobaha caqliga nadiifka ah uu ka jiro. waa doodiisa sida uu leeyahay. waxa uu sidoo kale tilmaamayaa in isbedelada waaweyn ee dunida ka dhacay ay ku yimaadaan afkaar iyo waliba santuuqyada in lagu kala baxo oo dimuqraadiyad lagu dhiso. laakiin dal ku yaala Afrika sida Burkina Faso oo kale oo shacabku ay baahan yihiin isla markaana macdantii iyo kheyraadkii wadanka uu lahaa si dadban looga faa'iideysto isla markaana ay bulshadu arkayaan iyagoo baaba'san. waxa uu leeyahay afgambiyada waxay ku yimaadaan cadaadis militariguna waa ay ka faa'iideystaan. taasi waa mid qasbaysa in uu hadda talada wadanka yimaado Ibrahim Traore isla markaana iska daa Burkina Faso dhalinyaro fara badan oo xitaa qaaradda Afrika ku nool ay soo dhaweynayaan. haddaba laba su'aal ayaa la isweydiinayaa mustaqbalka Burkina Faso xagee ku socdaa. Ruushka iyo Shiinaha cusub oo qaaradda Afrika ka dhashay ayaa lagu tilmaami doonaa oo 10 ilaa 30 sano ee soo socota haddii gacankan uu gacanta ku hayo isbedelo waaweyn keeni kara mise waxa uu noqon karaa mid raadkii Thomas Sankara raaca oo isaga qudhiisa ayaa taariikh noqonaya. macnuhu waxay tahay kama badbaadi karo dhagarta reer galbeedka. waa sida dadka qaar ay u fasirayaan laakiin adiga ra'yigaada
maxay kula muuqataa qaybta hoose ee commentiga ku qor hana hilmaamin YouTube-ka inaad subscribe saarto. Waa mahadsantihiin.